السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت سوري هذا waxay noo socday kooriska la magac baxay siisayna Cisco Software Network Associate hadduu alla idmay saddexdii chapter ee hore theory noogu filan maadaama network balaskiina aanu ilaa 20 chapter ku soo aragnay iyo theory ah saddex chapter oo kale noo iska miraajac ahaan hore u soo aragnay iyo waxyaalo nagu cusub aanu aragnay saddexdii chapter ee part 1 raacsanaa maanta hadduu alla idmo waxaan bilaawi doonaa chapter 4 oo raacsan part maxay tuugi waayo contentiska ama chapterskeenu si u qaybsanaayeen hore uga sharaxnaada eegi doono chapter 4ko waana ogsoonada inuu raacsan yahay qaybtii labaad ama part 2 koorskeenu ka koobnaa haddaba chapterkan intaynaan bilaawin laba ogeysiinaya ayaan ogeysiin wax weeyaan horta maanta ama koor marka chapterkan afraad bilownay ayaan bilaawi doonaa practical waxaana rajeynayaa in uu noqon doono practicalkan samayn doonaa mid aalad insha Allah اللي يبدو تعجب أو أول بدن دونا براتيكالك أو أردك واحد رجيني إن أنا مرضم ب أنا كورس كله يقانا سيسكو سيسينا هذا إن أنا مرضم بقى أنا دبل هتقول لي أنا يلاقي سجوت هاي براجع لكن ودكتور مرجين دونه هو حربنا إن أنا مارس كسرنا قدم كلمات محويا قرأ البدن ميلكو يلا يو آخر بدن وحلا جامو به وحويا ده تركنا في رأسه قاعد laba qodob baa laazima kow maadaama waxa la magaranaysa la configuration gareynayo ama gaar ahaan ba hadii la soo gaaro chapterka falada waa mar walba aad maskaxda ku haysa dadaal badan aad gelisaa wixii markaad youtube-ka ka daawatid waana adigu dib u muraajacaysaa qodobka meel masla saan intaas waa iska talo aan chapterkeena hadda gudaha u soo galno qodobka kale in karayo aan jeclaysiin raaco wax weeyaan minidyada waan badinaynaa si aan hore u socono dhowr jeer taana waan ka dhawaaji dhiman aan iska bilaawna chapterkeena afraad ayaa magaciisa waxa la yiraahdaa using the command line interface sida loo isticmaalaa command line interface sida loo isticmaalaa command line interface horta script baan ciwaanka magaciisa waxaan leenahay program walba inta meel lagu qoro program walba ama software oo la dhiso program walba oo la dhiso laba midkood mu noqdaa saaxiibkayo wuxuu noqdaa laba midkood mu noqdaa inuu noqdo CLI ama inuu noqdo GUI waya GUI iyo CLI maxay kala yihiin si garan ku faasiyo barnaamijkaaga labada midkood mu noqdaa ama CLI ama GUI CLI waa maxay waxa weeyaan barnaamijkaagu inuu noqdo meel sida kan oo kale oo CLI waxa loo soo gaabiyay sida waxa loo soo command LN waxa loo soo gaabiyay waa line aidan waxa loo soo gaabiyay interface inuu barnaamijkaagu sida kan oo kale noqdo marka ka soo baxno aan dhahno keep ay noo sidii barnaamijkaagu inuu noqdo sida CMD go kale damka CMD go kale aan soo kicino hadii yar go noqdo CMD ga nimka tan soo kicino sidii barnaamijkan oo kale waa software sax laakiin waa maxay waa CLI waayo waxba la kor gareynayaayo meel la tataabanayo loodhanayo oo kay iyo kana taakay noo dhig waxaan rabaa kan waa CLI oo meel oo kay ah iyo meel magaranaysa xunbad kor gareynaysa waxa rabtay inaad soo saartid oo kale tusaale kale waxa rabtay inaad ogaatid host name-ka computer-kaaga oo kale waxbaad qoraysaa laakiin meel options aad ka bedeshid computer-kaaga isa kala dagaasay marka waa maxay barnaamijkan wuxuu tusaaleeyaa maxay CLI haddaan calculator-keena soo keenana calculator-keena waa GUI calculator-keena waa GUI waayo wuxuu GUI u yahay options buu leeyahay oo wax la qorqor waxa la leeyahay tusaale marka rabeen laba idhaado meel baan ku dhufanaya marka rabeen isku qaybin oo kale meel isku qaybinta taabanaya saddex baan u qaybin oo kay baan dhihi dadna meesha rabo waxaan ka bedeli doonaa halkaas aan ku dhufan halkaas aan sii dooran waa GUI waa graphic user interface GUI maxaa loo soo gaabiyay aan ku qorno GUI waxa loo soo gaabiyay graphic user interface aan dhaho hadduu alla idmo tibiyar noqdo ayaa dib soo galo okay ahlan inuu noqdo maxay GUI waxa loo soo gaabiyay graphic
وبرنامجyada badan aan adeegsano waa wada graphic waa GUI waa graphic U-dan waxa loo soo gaabiyo waa user ka ku qoran user I-dan waxa loo soo gaabiyay waa interface barnaamijka labaad software-ka sameynta talaba midkood noqon doona ama inuu barnaamijkaagu noqdo meel options loo menu la soo firi doono oo wax laga bedelayo iyo inuu noqdo CMD-ga kore waxa lagu qoran deednahe wax soo baxan laakiin aan lahayn options meel laga save karayo meel laga baqtiyo meel laga saxaan lahayn haddii rabtid inaad baqtisan aad wax qortid haddii rabtid inaad shidina wax qortid barnaamijyadaas loo qaybiya haddaba waxa sheekadeena geli waxaan qodob ka mid ah marka aan rabno inaan configuration ku sameyno qalab kamid ah qalabada networking-ka ah marka aan rabno mid kamid ah qalabada networking-ka inaan configuration ku sameyno waxaan adeegsan doonaa GUI ma adeegsan doono laakiin waxaan adeegsanaa CLI oo ah waxaan qori doonaa configuration waxaan ku qori doonaa CLI meel waan arki doonaa marka Cisco bracket-ka la soo degnay meel la oranayo kacar iyo maxaa hadaan dhahro save iyo xasbi jirayso hadaan rabay inaan wax save kareeyo hadaan rabay wax dhiig gareeyo hadaan rabay inaan wax bedelaba intaba waxaan qori doonaa commands ama awaamir marka waxa weeyaan chapterka hadaan soo gogweyna app Soomaaliland sidee loo isticmaalaa CLI-ga sidee loo isticmaalaa command line interface-ka ama Cisco bracket tracer-ka hadaan tusaalahan kale ku bixino sidee u adeegsan lahayd qodobka sax meel misla dhignay hadaan inta fahmina meelo kala baynaad ka soo fahantii isku day laakiin intii karaankayga waxa isleeyahay insha Allah way fahmay misla fahmay chapterkeena magiis intaas u qaadan doono haddaba hore u sii socono haye haddaba chapterkan ma kala marayno chapter walba wuxuu leeyahay wax loo yaqaan objectives ama ujeedooyin chapterkan marka joogto waana saddex shay taqaan kow ama marka dhameysay waana chapterkan aad garan kareysid waa inaad qalabkaaga loo yaqaan switch-ka switch device-ka inaad command line interface-kiisa oo CLI loo soo gaabiyay inaad access gareyn kareysid oo aad wax ka bedeli kareysid salaad qalabkeena switch-ka ama kusino kale inoo yaalo ma dhawaan gaari doonaaye aan gudaha u galno waxa noo soo bixi doona daaqad CLI ah ayaa noo soo bixi doonta waxaan ka wadnaa CLI commands lagu qoray sideed wax ugu qori lahayd sidoo xogta bedel sidoo isticmaal sidoo loo dhaqmi lahayd aan ku baran doonaa chapterka sidoo kale waxaan ku baran doonaa Cisco bracket tracer-ka sidee loo install gareeyaa si loola soo degaa sidoo kale sidee Cisco iOS-ka waxa loo soo gaabiyo oo gaari doona laakiin kaas ka sii sheegno iOS waxa loo soo gaabiyay ayda waxa loo soo gaabiyay waa internet work waxaan qorayaa ambaabiyo xal farba ma hay iska saxno iOS waxa loo soo gaabiyay waa internet work oodan waxa loo soo gaabiyay waa operating waxa loo soo gaabiyay sax operating wuxuu yahay waan sheegi doonaa laakiin horta magaciisa waxa loo soo gaabiyay waan adal karankaas operating STN waxa loo soo gaabiyay waa system iOS hadad maqashid waxa loo soo gaabiyay waa internet work operating iOS waa maxay waxaan ku leeyahay iOS waa operating system-ka ku jira qalabadeena network-ka ah hasilafan tusaale qalabkaaga switch-ka ah waxa ku jira operating system-kaas loo yaqaan iOS version kala duwan buu leeyahay sidee looga bedelaa sidee iOS-ka looga bedelaa sidee cusub loogu shubaa sida computer-da operating system-ka looga bedelo iyaguna waxay u baahan yihiin operating system-ka in laga bedelo haddii mid cusub soo baxo router-ka operating system buu leeyahay waxa loo yaqaan iOS marka qalabka maskaxda ku haysa each operating waxaan jeedaa each networking device has ama aan dhahnay each networking device have iOS that means internet work operating system and the operating system is the was the brain of operation waa maskaxda ka dambaysa in computer qalabkaaga network-ka ah internet work device-ka in configuration lagu sameeyo oo qalabkaaga switch-ka marka halkaas kale iska yaalo ee aanu ku jirin iOS-ka operating system-ka ama software-kaas aanu ku jirin wuxuu la macna yahay remote kale iska la macna ama waa qalab meel iska yaala ama waa laba birood meel iska yaala iska noqon laakiin marka operating system-ka lagu shubo magacii switch buu noqon shaqadii switch buu qaban howlkarnimadii switch waa la adeegsan lacag buu qiimo yeelan muhiimadaas oo dhan buu yeelanay marka sidee loo configure gareeyay ku baran doonaa sidoo kale marka arrimo badan oo iska practical ah ayaan ku arki doonaa mid loo ogsoon oo chapter-ka noo soo socda aad iyo aad ayay u yar yihiin oo practical-kooda ayaa aad u badan hay haddaan iska sii socono waxaan ku horeynaa horta
qalabkeena loo yaqaano switchka maadaama chapterkii labadaba kala marina switchka waxyaalo badan ka soo aragnay siduu u shaqeeyaa ninka qeexitaan nooguma baahna qalabka loo yaqaano switchka haddaan faham guud ka bixino switch waxaan kusoo sheegnay inuu yahay qalab ka mid a qalabada network device-ka kaas oo ah lafdhabarta shabakadaada laanka ah qalabkaaga loo yaqaano switchka waxaanu sheegnay inuu leeyahay wax loo yaqaano catalyst ama si kale haddaanu dhigno muajwallo oo qalabkaaga switchka ma aha switchu soo mobile markaad kelmadda maqasho mobile soo mobilada ma kala duwana mid ay shirkadda soo saartay apple ama shirkadda samsung soo saartay soo ma kala xajmi weyno soo ma kala cusba saas si lamid ah ayaa qalabadaada switchkana u kala duwan way kala xajmi weyihiin way kala shaqo badan yihiin way kala lacag badan yihiin way kala isticmaal badan yihiin way kala hawlkarnimo badan yihiin way kala horeeyaan waa la kala arrimo badan bay kala duwan yihiin sawirkan marka kuu muuqdaa switch weeyaan maxaa aad ku garatay switch badan waxaa lagu yaqaanaa godadkiisa badan filimka switchkaa sare bal godadkiisa aan eegno aan tirino waa maxay waa 1 iyo 2 iyo aan tirino waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 labiyo saddex afar iyo labaatan kaas waa fast internet noqon doona gaari doona waa godad fast internet macnaheedu markaad maqasho fast internet speed intee leeg u bixinayaan godadkaas ay leeyihiin adaan ku weydiiyey horaan soo dhiganay haddaad maqashid godkaasi speedkiisu waa fast internet adaa sheegi doona ila horaan soo aragnaa saaxiibi laakiin labada goda kala soo haray aan ku tuso laba goda soo haray waa labada goda kale iyaguna soo haray inay iyaguna geega noqdaan baa suurtagal geega internet maxay noqdaan geega internet inay noqdaan bay u badan yihiin way yariga fog yihiin laakiin waan arki doonaa iyadoo practical ah oo baqanin marka switch waxaan ogsoonay in godad mar uu ku yimaado 24 sida kan oo kale waa 24 log waa 48 marka dan kan tirina 48 mu noqon doona bal mas'ala eegna si degdega aan tirina waa 48 laakiin aan eego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 كوبي صدن لبي صدن صدعي صدن أفري صدن شني صدن لحي صدن تدوي صدن ستيدي صدن سقالي صدن أفرت كوبي أفرتن لبي أفرتن صدعي أفرتن أفري أفرتن شني أفرتن لحي أفرتن تدوي وأفرتن ستيدي أفرت ولا بتشبارك كي هري كي روحوا أفري لواتن بوها كانوا واحد وأفرتن يستيد مركا قار كبدن وأفرتن ستيد أو كحج من بدن أو كل عقب بدن بعد كريسة switchada midabkan ama qaab dhismeedkan la yaqaan waxa weeyaan waa 2960 matchwellkiisu waa 2960 badana dusha ka qornaatay magaciisu matchwellku yahay marka waxaad arki doontaa haddaad aragtid raqamka doon saar 3600 oo kala dad aragtid hamoodi inuu switchkii uu inaanu switchan laakiin waa switch laakiin waa ka performance baday ama ka hawl karnimo baday qaacidana meel ku qoro switch haddaad aragtid laba switch oo meel yaala tusaale sawirkeena inaga soo waxaad ka soo qaadaa qaybteen switchkeenan hore ayaa matchwellkiisu waxa waa mar raqamkiisu waa tusaale 1900 waa ayuha XR ka soo qaad qaybtan kale waxa noqotay 3200 XR mar niyadaada ku soo dhacay maadaama uu ka raqam sareeyaba ogsano waa uu ka performance sareeyaa ka sareeya waxa su'aala XR maxaa looga jeedaa waxaan ku leeyahay waa nidaam xisaabeed lagu xisaabiyo si uu kala sareeyo tusaale marka mobiladana la joogo miyaa la oran waxa weeyaan A10s soo kombiyuutar A10s ma jiro S waa nidaam xisaabeed wax lagu xisaabinayo soo ma aragtay kale waa A+ yana leeyahay waan dhahno waxa jira A50 E50 ayaa jira A30 baa jira A20 baa jira waa nidaam xisaabeed eedan iyo XR waxaan la yaabay marka la joogo catalyst switchka nidaam xisaabeedka lagu xisaabiyo loo yaqaan XR
waxyaalaha loo soo gaabina hore aan ugu sii socon doonaa laakiin waad iga haysaa qaab dhismeedka weyga qalabkaaga switchka warbixin dhamaystiranna hore aad ugu haysidaysaa waxaan ka soo qaadan doonaa bal aan eegno sidee qalabkaagu markuu yahay tusaale kan waa qalabkaagii switchka kan waa maxay waa qalabkaagii maxay switchka weeyaan ma rabin halkan soo gaadho oo practicalka ayaan doonayay inaan halkan ku aragna laakiin faham guud aan ka siyaasano maadaama rabo soo noqona waxaad ka soo qaadaa kan yahay qalabkaagii switchka in yahay maxay qalabkaagii switchka si aad qalabkaaga switchka configurationkiisa ama CLI aan isla garanay program CLI waa maxay waa programka ku jira operating systemkaaga wax lagaga bedeli doono marka CLI-gaaga ku jira qalabkaaga switchka ah waan arki doonaa si practical leh dhowr jeer waan ku celiyay laakiin ma rabo inaan kortido ayaa marka rabtid inaad configurationkiisa kale wax ka bedeshay sideed wala xiriiri karaysa adoo xatay computerkaaga network administration waxa rabtid inaad wax ka bedeshay sideed u gaari karaysa horaan soo dhigana waxaad adeegsantaa xadhigii loo dhigay console cable-ka ama roll off isku macna haayeen adiga godkaad computerkaaga ka xidhiidhsa laptopkaaga waa serialka ama USB-gaad kaga xidhi doontaa isagana godkaad ka gelin doontaa waa godka ama RJ45-ka uu leeyahay ama USB oo tusaale marka sawirkeena ku soo noqono kale qalabkaaga switchku kanoo kale yahay halka uu fiirso saaxiibkay qalabkaaga switchku waa ka saro tusaale ka saro adigu ma computerkaaga ama laptopkaaga ma kanoo kale yahay xariga waxaad soo qaadan doontaa console cable-ka computerkaaga gelin doontaa ama USB portiga ka geli ama waxaad ka gelin doontaa godka loo yaqaano RS 232 gaad ka gelin doontaa xarigaas isagana afkaada waxaad gelin doontaa ama RJ45 ka haduu banaaye ama god loo yaqaano console port ayaa jira oo ku yaala ayaad ka gelin doontaa marka inta ku sameeysid ayaa waxaad awood yeelan karaysaa inaad configuration-ki samaysid si kale waad samayn karaysaa haddii bal ka waran qalabkaaga switch uu kanoo kale yahay computerkaaguna kanoo kale yahay aad meel kale joogtay tusaale network administration baa tahay qalabkan switchka rabtay inaad wax ka bedeshid switchkaagu wuxuu yaalaa magaalada Hargeysa uu yaalaa adoo joogo adoo fasax qaatay oo magaalada Burco kala jooga ayaa waxa la guri adoo baata qalabkaaga switchka inaad configuration ku sameeyay ama inaad ka bedeshid ama inaad soo gaadhidba sidii soo gaari karaysaa waxay awood u leedahay inaad adigu halka jooga inaad awood yeelatid inaad qalabkaaga switchka aad soo gaadhid waxaana la awood yeelanaysaa kii maxay xariga geliyay magaranaysaa console portiga ka geliyay sidii qof joogo kala wada dhaqmaysa adoo adeegsanaya protocolada loo yaqaano SSH-ka ama telnet labada protocol midkood ayaa ku ogolaanaya in qalabkaaga switchka adigoo ka fog inaad soo gaadhid telnet-ka iyo SSH-ka labadooduba waxa loo yaqaanaa remote protocols waa remote maxay waa protocol adoo dabada ka jira si ku sahlay inaad soo agskariso qalabkaaga waxa loo yaqaanaa remote protocols baa loo yaqaanaa marka maxay ku kala duwan yihiin telnetka iyo SSH-ku waxa leenahay telnetka iyo SSH-ku labaduba waa isku shaqo laakiin halka farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan in SSH-ku uu ka amni badan yahay telnetka sidoo amni badan yahay waxa uu amni badan yahay ku leeyahay sida tan marka qalabkaaga marka aad adeegsatay protocolka telnetka si computerkaagu uu soo gaaro switchkiisa configuration oo ugu bedeshid aad ugu sameeysid ayaa xogtaada inta ay hawada ay soo socoto ay soo marayso TCP/IP network aad shabakadaada aad ku soo gaaraysid xogtaadu waxay soo dhex maraysaa iyadoo ah plain text iyadoo maxay aasa plain text maxaan ka wadaa iyadoo qoraal cad ah oo la fahmi karayo oo haddii dhexda waxa karkeen uu akhrisan karayo oo la fahmi karayo oo waraaq iska safiixa ah oo fariintiyo cad ayaad soo diraysa laakiin marka adeegsanaysa protocolka loo yaqaan SSH-ka ay isku shaqeeyeen internetka oo isaga marka dhexda xogtaadu soo marayso waxa laga dhigaa xogtaadii cipher text halkan nidaam u baaw xalka afar xogtaadii waxa lagu soo sameyn doonaa waxa loo yaqaano encryption ama xogtaadu waa la soo daxari doonaa xogtaada nidaam qoraaleedkeedii sida u dhignaydii waxba laga soo bedeli doonaa taas macnaheedu tabada haduu hackerka uu helo ama qof kale oo raba qof kale awood yeeshin xogtaada dhexda ka helo sidoo doona waa ku helo ama barnaamijyo kale ha ku helo oo magaranaysa loo yaqaano capturing loo yaqaano ama si kale ha ku helay ama cid kale ha siisay ama markii hore sagu hacker ha noqdo dhexda ka helo waxa uu heli doonaa xogtaadii maxay ah
ciphertext-ka qaab qoraaleedkeeda waxa laga bedelay oo dib loo bedelay sidee xogtaada nidaam qoraaleedkeeda waxa laga bedelaa waa waxa soo course gooniya cyber security-ga insha Allah ku baran doontaa marka SSH waxa loo soo gaabiyay waa secure shell SSH waxa loo soo gaabiyay dushaan ku qoran SSH waxa loo soo gaabiyay waa secure shell waa maxay horena waan uga soo waranay laakiin waa iska xasuus secure shell sidee labadaba loo sameeyaa labadan protocol waxaan ballan qaadayaa inaanu samayn doono telnetka SSH-ka oo tusaale qalab ka fogo kale sidee u gaari karaysa waxaan samayn doonaa marka telnetka iyo SSH-ka labadaba waan samayn doonaa inta aan ku kulmi doono videoga soo socda oo aan chapterkeena afraad sii wadi doono inagoo practicalka insha Allah u garanaysa u diyaar garoobi doona intaasan kaga tegina wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.